boqor Cusmaan Buurmadow salaadinta Soomaaliland baad ka mid tahay kulliba waxaan u maleynayaa in codkaagu wuxuu noqon doonaa annaga nama taalo oo nama khusayso Soomaaliland baan nahay waxyaabahan reer koonfureedka ay wadaan laakiin maxaad tala ahaan ama fikrad ahaan aad ku kordhinaysaa qodobkaana go'aankii madashu ay ka soo saareen warmurtiyeedkoodii magaalada Muqdisho بسم الله الرحمن الرحيم عبد النور وحويان هرتا هدي أن سومالان نهي أما أنو قوان كيكا قونو قادنو أنو أولين هاي هدنا أنو قوضي سوماليات بان هايو وناقا إيو ولالايقا كونفريد بانو لجع الله وحفي عن رونهانتي فكر كيكا مركان كسور دو هادو إنان بوقتو هالكيت هاي أما ديبتو كجرتا إناي مانتا لغو نقضو وآن لغو وريقين دستورية شرعية وحان صعونينين waxaweyaan anagu markii hore 60kii ayaanu midownay markaanu midownayna waxaanu keenay walaaltinimo iyo niyad wanaagsan hadii aanu nimi waxaweyaan 60kii asxaankaanu samaynay horta mid ka dambeeya inaanu samayno oo walaalahay u samayno oo aanan wax la shuruuda la gelinay aanu ugu nimi meesha dawladdu gumaanu iman laba reer oo is haysta nasiib daro waxaweyaan ma oran karo dadku waxay leeyihiin daarood iyo hawiye maahan hiraab iyo majeerteero is haystaan u nimi anigu nin qabiil baan hay waxaan jeclahay meesha ay wax ku dawoobayaan inaynu taabano hiraab iyo majeerteen markaan u nimi daaroodkii majoritigiisa iyo farihiisa iyo hawiye wax alla waxay ku lahaayeen ma jiro waxaanu Soomaalidii meesha isugu timi ku maslaxday labadaas inay wax walba qaataan si ay walaaltinimo loo helo marka konton sano ka hor khaladkii la galay maanta in Soomaali lagu maamulo oo wali lagu wax loogu qaybiyo waa ceeb weeyaan marka qadiyada boqor wax yar raali ahaw qadiyadii Soomaaliland waxaad ka dhigtay marka wax qaybsi uun inay ku tageen maya sug waa soo socdaa waxa weeyaan waxa meesha yaala waxa weeyaan midnimada anigu ragii Afrika inay midowdo oo la leeyahay waxa weeyaan midnimo cadaalad ku dhisan shakhsiyan anigu ma diidani laakiin masiirka shacbiga iyo dadkaygu qaato waan ku khasbanay inaan qaato waxaan doonayaa inaan ku sheego wixii adeerkay rag cadaalad waaya sidii cawsha kale meesha cadaalad darra Soomaali ka dhacday waxa weeye waxaad ogtahay golihii sare ee kacaanka Ismaaciil Cali Abubakar madaxweyne ku xigeenay Umar Cabdi Qaalib wasiir khaarijiga ugu fiicnaa iyadoo dawladii dhisan tahay bay Maxamed Siyaad Barre intaan labadooda la xidhin intay shir la galeen bayadeen qaran qabiil ma noqon karo 18 gobol markuu ku kordhiyay goboladii dhisnaa in reer leeyahay ku kordhiyay ilaa hadda in Soomaali la yaado 18 Maxamed Siyaad Barre reernimada ku qaybiyo wax loogu qeys cadaalad darrada ka mid tahay waxyaalaha wax ku dawoobay meelaha wax ka xun wax ka mid ah hadda madashan la sheegaya reeray ku dhisan tahay waa niman sheef caaqil ah anoo ixtiraamaya waxa weeyaan waxaad ka soo qaadaa shirkii horeeyay Kismaayo 7 shakhsi baa madasha la yiri Soomaaliland baa lagu soo qoray meesha wax loogu qaybiyay Soomaaliland ma joogto hatta Maxamed Cumar Carte oo la yiri madashu goob jooge ka yahay kuma jirin 7 shakhsi waxa weeyaan majority-na waxa weeyaan waa hiraab iyo majeerteen todobada bay ahaayeen todobadu waxay ahaayeen todobadu afarta maamul goboleed metelaya iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul baarlamaanka ayay ahaayeen ra'iisul baarlamaanka aan door weyn hadana isagu ku lahayn marka waxay muuqanaysaa majority inay ahaayeen sidaan sheegay ka dhawaatay hiraab iyo majeerteen inay ahaayeen iyagu haddana aqalkii saraanu qaybinayna ummad baanu wax u qaybinayna international community dhageysato international community Mareykan baa ugu awood weyn oo 1765 Patrick Henry ninka la yiraahdo iyo Samuel Adams waxay diideen ayaadeen cashuur markaa ninkii governorkii Virginia wuxuu cashuur aan wakiil ku lahayn ma bixinayno uu diiday give me liberty or give me death buu yidhi marka waxa weeye maanta in la yiraahdo meel aan wadada aan wakiilba lahayn ummadii kale aan wakiil lahayn inay hiraab iyo majeerteen inta yiraahdaan madal baanu nahay oo baarlamaankii la jiiro oo shuruucdii dalka la jiiro inay yiraahdaan anaga qaybinayno waxay qaybiyeen ay tahay waxay reerahooda u soo qaadeen boqor Cusmaan raalli ahaw waxaad moodaa inaanaan hayn isim ku jawaabo oo sidaadoo kale qabaa'ilkii iyo sida wax lagu qaybiyay iyo 4.5 iyo qolo walba intay ka heshay iyo qolo walba intay salugsan tahay iyo laakiin waxaan hayaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Maxamuud Faarax oo ku magac dheer Indhabuur xildhibaan soo dhawow waa mahadsan tahay bal waad maqlaysay doodu sida ilaa ay u socoto iyo hadallada boqor Cusmaan boqor Cusmaan hadduu yiri hiraab iyo majeerteen baa waxa weeye wax qaybsaday isaguba dad buu dulmiyay oo waxa weeye 12 xubnood ee waqooyi la siiyay
kuwii dhulbahante iyo kuma leh isaga hadalka qaawiye dhulbahante iyo warsangeli waxba kuma leh oo la taagan yahay oo ay la musanaabayaan oo migeer walba la taagan yihiin yaa reer waqooyi ma isaaqba reer waqooyi bal weydii cid reer waqooyiga ama Soomaaliland magaca Soomaaliland ma isaaqba ma dir waqooyi baa bal isaga horta hal la weydiiyo midda labaad ina Cumar Carte marka uu leeyahay waxa weeye la siin maayo leeyahay madashiina uu fadhiyo bal waxa uu ku fadhiyo hal la weydiiyo ma isaaqnima mise waa reer waqooyi inuu reer waqooyi wax u qaybiyo ayuu xaq u leeyahay labadaas su'aalood baan anigu bal boqorka weydiinayaa waxa weeye aan weydiinayaa boqor waa maqlaysaa xildhibaanka ka garbax ilaa adaa beelaha soo hadal qaaday horta waxa weeyaan markaynu sidaa ka hadalno anigu horta marka horeba qaybta tan qaybna kama nihin Somaliland haddaanu nahay waxaan soo geliyay de horta madasha ama raalli ka hada ma ka raalli ahaanino idinka igu soo marti qaaday may waa runtaa waxaan rabnay waxa weeyaan marka saa laga hadlayo 4.5 baa wax lagu qabsaday waxaan kale ee Somaliland iyo Puntland iyo waxa kan Soomaaliya oo aanu ka tagnay dawladda oo maanta 5 meelood loo jajabiyay aan jirin inaan wax ku darsanana diyaar uma lihin dulmigan carruurtayda ka galay mid labaad inaan ka galayna ma doonino mid waxa weeye khilaaf annaga noo yaala Somaliland waxa weeyaan waxa iyaga wixii naga khaldan waxaan leeyahay waqooyi Somaliland markaanu leenahay dulmi gaara oo siyaasadeed baa laga galay laba ra'iisul wasaaraha soo maray midna wuxuu ahaa Maxamed Ibrahim Cigaal midna wuxuu ahaa Ali Khaliif Gareyd labadaba koonfur baa lagu inqilaabay waxa dhacaysa marka annagu waxa weeyaan waxba kama qabno marka annagu Somaliland inaan wax qaybsano diyaar baanu nahay wixii aanu walaalaha iyaga kaga khaldanahay annagu Somaliland xaydaanka Somaliland markay nala soo galaan waan qirayaa inaanu saamiye aanan lahayn annagu haysano oo beelakli diyaar waxaanu nahay inaanu siino maanta waxaanu diyaar u nahay inay madaxweynaha qabsadaan Ali Khaliif baa noogu adago maanta inuu dalka xukumo oo uu qabtaan oo kale laakiin waad arkaysay Cabdiwali Gaas oo madaxweynaha wuxuu warsangeli iyo dhulbahanta midna ma jiro waxoodana ma qaysan karaan xorna ma noqon karaan hadalka masaas uu yiri boqor hadalku uu ka daba imaan waa inaa saxdaa boqor waxaan rabaa inaad weydiiso hadda ka hor boqorku isaga yiri dhulku waa Somaliland dadku haday raacayaan tulkooda raacin isaga afkiisa ka yiri marka bal isagu bal meel dhan haysu raaciyo bal baawsha marna ila 4.5 wax lagu qaybsaday daarood iyo saadir iyo waxa lagu qaybsaday waxa weeye wixii lagu qaybiyay maxaa soo celiyay Somaliland maxaa soo geliyay oo gooday wax lagu qaybiyay maxaa loo diiday in 4.5 lagu qaybiyo maxaa keenay maamul goboleedo burburay oo aan waxba ahayn waan awood haysan inay nimankii dawladda haystay madaxweynaha prime ministerkii la lahaa umad baa dooratay inay ku celiyaan reer ku celiyaan oo beela ku celiyaan oo dalkii beela dib loogu maamulo anagu waxaan leenahay 4.5 hadii wax lagu qaybinayo waa inuu مثلا oo kale bir ay yeeshaan madaxda halka wax ka qaybanaysa inay wax ku yeeshaan baan qabnaa dhulbaahanta iyo warsangeli ka raaciyay Puntland raaciyay maxaa Somaliland dib ugu soo celiyay Cabdinuurow maxaa dib ugu soo celiyay waxa la yiri 18 gobol baa lagu saleeyay 18 gobol waa kuwii laga dagaalamay dagaalka reer Soomaaliya dagaal kale laga didaya nin baa qaybshay reer baa qaybshay waxa sameeyay wax Soomaaliya u dhamayd maaha Soomaaliya waxay wax ku qaybsan kartaa 6 dib loogu noqdo waxa ku wada hadli kartaa Somaliland iyo koonfur waxa loo wada hadli karaa waxa farxaanow isaaq burco bara iyo wuxuu leeyahay iyo hargeysu leeyahay waxa weeye ma waxa la oranayaa markaas 18 gobol hadaan wax lagu qaybin xaguu ka keenaya waxa dheeraadka uu doonayo maanta 12 xubnood bana la siiyo 12 xubnood wixii 12 xubnood mid laga qaadi maayo yiri isagu ama nin reer waxa Somaliland oo dadka dooninka aaminsan ha noqdo boqor oo marka anagu jalaha leeyahay aad baa u mahadsantihiin